Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wanaagsan, caafimaad baan idin rajaynayaa. Meel walba waad iga daawanaysaan. Halkan waa Akram Online College. Anigana waxaan ahay Bakar Raxaan Cabdulle Ustaad Tsunami. Waxaan la soo wadaagayaa maalmahan dambe sida aan howlaha qaar u qabto iyo caqabadaha qaar oo aan macallimiinta ay ii soo gudbiyeen iyo arday ii soo gudbiyeen. Kastoo casharadii inta ugu badnaa aan ka yara gaabinay maalmahan preparation oo dheeri ah oo lagu jiro awgeed iyo arrin markaasi Akram Online College u qaas ah iyo Ustaad Tsunami oo jira awgeed. Caawa waxaan jeclahay inaan idinla wadaago sideen ardada Englishka u bareena. Gaar ahaan waxaan caawada dul istaagi doonaa bisha koowaad iyo ardayga sida aan Englishka u bareen. Dabcan online aad u tiro badan ayaa jira oo aad iyo aad u badan, laakiin problemka wuxuu yahay waxaa la ilaaway ardadii bilowga ahayd. Every online college believes that the students are middle. waxay yani dadka badan beliefkooda online college beliefkooda waxay aaminsan yihiin yacnaha in ardayda ay ku jiraan arday mar walba bilow yacnaha oo bilow aan ahayn oo dhexdhexaad ah, يعني بريفة صور إكتي وعصور إكتي كسوير دالي ده أونلاين مالي ماشي واحد كبح مركا أرديك باللوجة أونلاين كربو سيدو كبرنا لغة إنجليش سيدو كبرنا أنا مركا أكرم أونلاين كول سووا كجوابه سؤال شاسي وحان سميني هب لود ديجايو أرديك باللوجة إنجليش كلوجة ديجايو إيضو سكتشر له hal bilood lagu soo koobayo cashir muhiim ahna la siinayo. Waxaan jeclahay inaan idin la wadaago schedule-ka marka ugu horeysa. Schedule-ka waa kana. Schedule-kan wuxuu anfacaa macallimiinta ardada Englishka bilowga u dhigaysa. Gaar ahaan kuwa hadda sanadkooda koowaad ama labaad ama saddexaad kuwa reersan xoogaa sidee baad Englishkan isugu aadinaysaa ardada markaad Englishka siinaysid sidee isugu aadinaysaa. markii isku aadkan anaa ku sameeyay waa kana waa diyaar. haddii aad doonaysid pay the price, qiimo bixi and get the quality. inkastoo dadka online kana ku xiran badankooda iska aaminsan yihiin wax walba si aan ku siiyo yani soo qabo macallin iska si waxaan ani si aan ii soo diray dad badan iska yaqaanaan. That's a problem. qofka يعني أذن سمعت هان وحبا كوفي عن قف كان سووا سنبكوغو شيئا نبا I give you something, give me. There is no free lunch in the world. أدونك واحد free مجرد. مر curriculum كان هدي أدوني سو مقالك باوس له كقر. هدي يعني عادة سووا فوت أو سنة هنا سدوا كانوا إبسن كرتها. curriculum كا واسكا لعك رخيصة و$6 ما لا قارن ولا قاع عاونا يا أو كوغات كذا. طلبات امتحانك أرديك لا قاعد لا حتى أذن له دايق دونا إن شاء الله. وي مركب قهريس أرديك مركب بلويا محل دقايا محل برايا مركب قهريس alphabets كالور دقايا A B C دي مركب لوجو بلاوي A B C اللوجو صو بلاويا A B C دي مركب فهمه شغلة ده اللوجو بلاويا إيه وحالور دقايا شبهنياشة A E I O U الله صو دقايا شغلك إيش بنا مركب فهم مركب حاله حقيقينا يا أرديك إنه A B C مركب دمايو alphabet كود دمايو inuu xaraf u kala garan karo alphabetka akhrin karo qori karo hal xarafna u kala garan karo. taas waa in la helaa waa waajib. kadib waxaa la barayaa vowelska shaqalada, waxaa la barayaa shibanayaasha, kadib waxaa la barayaa 20 eray oo English ah. 20 ka eray inta laga keenayaa qaar ka mid ah waxaa laga keenayaa eray school, eray familka ah, eray cuntada ah. kadib waxaa la barayaa jamac iyo kali mid walba cashir walba inta laga siinayo way macnaa way diyaarsantay wax oo iska siinayo ardayga ma jiraayo. kadib markuu ardayga erayadii barto hingaadi barto jamac iyo kali sameyn karo kadib waxaa la siinayaa hadana basic English this that this those loo dhigayaa ka markuu barto oo af Soomaaligiis kala saari karaayo ardayga aad baa loo imtixaanaya. waa very important place meel aad muhiim ah weeyaan. ardayga markii base laga dhisaayo wuxuu u baahan yahay in aad xoog loo saaro. what is that, what is this, what are those, what are loo dhigaa hadana an etc. hadana ka markuu fahmo waxaa loo dhigayaa pronouns I, you, we, they, she, he, it loo dhigayaa. hadana maxaa la sameynayaa ayaga iyo jumlada gelinaya. Tusaale waxaa la barayaa I aniga I am waxaan ahay. yani waxaa la barayaa difference u dhaxeeya ahaanshaha
ayaa markaan waxaa la gelinayaa jumlada kadib waxaa la dhigayaa positiveska my your our there aada la baraya mid baa loo xafidsiinaya mid walba waa la xafidsiinaya haddaba macalinka sidoo raacaya schedule aan dhahna meeshan curriculum no it's not this curriculum so here is a schedule see u raacaysaa marka tusaale ahaan you are a teacher sidee u raacaysaa maalin koowaad waxaa siinaysaa a b c ilaa g maalinka labaad waxaa siinay h ilaa n o ilaa u v ilaa z marka waxay ka dhigan tahay isbuuca koowaad waa dhamaysay a b c da aniga hadda I don't work on Friday on Wednesdays maalmaha arbacada ma shaqeeyo so that jadwalkan aniga kalaaskii ayuu ku depending garaysan yahay marka afarta maalin sidee a b c loogu dhameyn karaa saana ugu dhigaynaa marka kadib maalinka lixaad sabtigu imaanaya shaqal shibana loo dhigayaa mid marka cashirkan loo soo dhigo ardayga waxaa la sameynaya waxaa lagu xaqiijinayaa a b c d e f g ma akhri karaa ma qori karaa mid kasta ma aqoonsan karaa kadib marka taariikhda aad siisa inta ku qoraysaa result oo ah macalinka buuxinaya kan ardayga wuu fahmay ma fahmin wuu gafay ma gafin si yacni automatically iskula xisaabtamo maalinka isbuuca kale marka automatically isbuuc wanka waxaa soo dhamaaday a b c da isbuuca labaad waxaa dhamaanaya shaqaladii shibanayaashii waxaa loo sii dhigaa erayadii ingiriiska erayga waxaa la rabaa inuu ardayga fahmo dhawaaqiisa fasiraadiisa iyo hingaadiisa hadduu ardayga online ku baranaya wuu soo duubaya it's very important meelaha aan xooga saarna ayay kamid tahay day 11 markaa this data la siinaa day 12 maalinka 12aad those la siinaa maalinka 13aad maalinka 14aad 15aadna waxaa dhamaanayo cashirkii dhamaanayo oo basic ahaa dhamaanayo maalinka 16aad marka la gaaro imtixaan baa laga qaaday ardayga macnaha waxaan ku xisaabtanay 16 maalin baa macnaha 16 class buu noqonayaa halka bilxisooyinka la qaadanayo 16 class buu noqon marka 15 classna waxaa la siinayaa cashir hal classna imtixaan baa laga qaadaya erayada marka la siinayo ardayga waa kana buug been yani erayada 6 eray oo dugsiga oo iskuulka 5 eray oo familka 5 eray oo cunada laga soo qaadanayo waa kaas qaybtan waxaa kugu qoran marka haddii aad macallin tahay teacher guide af Soomaaliana ku diyaariyay meesha waxaa kugu soo qoray fasal walba weydiiya cashirka aad u qortay ardayga hadduusan garanna u meeri mar kale ha tijaabiyo mujeda haddii aad macallin tahay oo aad kan iibsatana sidoo kale aad buu ku anfacayaa aniga ku hagaaya ugu dambeyntii jumladaha markuu soo gaaro isticmaal erayada hore aad usoo bartay ardayga kanna wuu ku hagaaya marka Soomaali ahaan weeyaan marka macallimiinta luqadda hadda bilaawaya oo dhigitaankeeda bilaawaya macallimiinta hore usoo dhigayay طبعا macallin badan baa soo dhigaya aniga hadda I have 9 years of experience in teaching English sagaal sano dhigaya luqadda marka ardayga imtixaan laga qaado imtixaanka laga qaadayo marka muxuu yahay imtixaanka laga qaadayo waa idin la wadaagi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo marka bishan sidaan uu ku dhameynaya ardayga haddii arday aad tahay oo aad nagu soo biirtid waxaan ku damaanad qaadaynaa in base-kaaga si wanaagsan aan u dhisayno haddii aad macallin tahayna schedule-kan aan ku hayaa $3 soo tuuro kusoo dira insha Allah WhatsApp ayaa kugu xalinaya enough okay hadda imtixaanka laga qaadayo waa maxay imtixaanka dad gadanaysid waxaa dhiibaysaa $2 so schedule-ka iyo imtixaanka waa $5 only okay waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka caawin doonto imtixaanka horta ardayga laga qaadayo saan uu ekaa fiiri okay inay la socotid baan rajaynayaa waa kan marka imtixaanka fiiri يعني this is my school كي واكن أو عن هذا الجوجو توس كان جوجو يعني معهد واي سكول كسيد عادي لكن أنا جاوا حن كده هبينكي وقلب بدي أنا كلاسي كارا كله أو كلاس مركز سكول كمدام وقلب بدن لي هاي يعني كلاسي خانة كخاطر امتحان مركز واكن هو كود ديارسيا موجودة ماشي أنا هذه سكول آد لا ده هاي معلم آد هاي كنا أسكت بحنيسا أصور ولا قصوا حبيلا يعني وأسكت ترتري ساكن دبعها الوصحة واكنا وبخل ماكس أنا أردي إنجليش برنا يا لسينايا كوفر بيج كواكنا مركفيري أردي ماشي لا جربه واكنا أنا مركا هدي أردي تامتحان كخادنا أنا أنت أنا كافيرنا كنتم برسنت أردي مركو بلوي وإنه A B C سفي عنه يقانا 10% وإنه أريد يقانا 20% وإنه يقانا basic English this that these those grammar كوإنه كيقانا 10% يعني grammar بعكودا I am you are we أو إنه كيقانا activity na 10 dhibcood way ma toon max lagu siinaa activity ga marka sida ardayga macalinka oo yaani ku sameystay ku xiran tahay inkastoo gadaal activity tan laga bixiyay fiican tahay okay xagaan imaa marka waa kana muujeeda
student level waa beginners, student result markaa imtixaanka sixaysid waa kana alphabetka meequu keenay, erayada meequu keenay, basic meequu ka keenay, grammar meequu ka keenay, activity maxaa siisay, dhibcaha guud ee ardaygan uu keenay waa maxay. macallin waxaan jeclahay inaad naqato macallin asdhan scheduled ah oo jadwalaysan. So pay the price. Total maagana meesha ugu qoraysa marka cover page kana wuxuu ka caawinaa automatic in waxa dhan ay ahaadaan wax systematic ah. imtixaanka waa kana ka fiiri kontonka dhibcood ee ABC da ardayga aad ka qaadaysid sidee loo kala saaray. fiiri waa kana meesha waxa waaye fill the blank space with the missing letters. ardayga xarfaha maqan uu ku buuxina missing letters ku sameeyna. Part 2 wuxuu sameeyna shaqaladu underline garana maadaama alphabetka ahmid la siinaayo waa inuu shaqalka fahmay shibanihi faham in loo wada la raba. haddana wuxuu underline garana consonantska ayuu hoos ka xariiqaya. haddana kuwan fiiri wuxuu ku qoraa luqadiisa af Soomaali ahaan kan af Soomaali ahaan sabab akhrina af Soomaali ahaan sabab akhrina uu ku qoraa ardayga. waayahay qaybta shanaad muxuu sameeynaa isagana sidoo kale write down as English af Soomaali uu qoray k af Ingiriiskeeda qor af Ingiriiskeeda qor. ardayga marka automatically every place buu ka dhismayaa meel kasta ka dhismayaa. marka kontonka dhibcood waa kaasa kontonka dhibcood xaggay saaran tahay. aan xaggan waxaa saaran 10 dhibcood erayadiyaa soo qaadana soo qornay macnahooda laga rabaa. kanna waxa waaye uu isku aadinaa kuwaana uu hingaadinaa. fiiri hingaad markuu sameynaya fiirada u jeedaa hal meel u saara c meel u saara h meel u saara meel u saara i meel u saara r meel u saara macnaa af Soomaali ahaan uu qoraa ardayga. waa kaasa beedka afaraad waxaa saaran sidoo kale beedka saddexaad aan dhaho meeshaan wuxuu ku buuxinaa SER xitaa arday dukaan si fiican u buuxiyo ma sha Allah. wuxuu bartay jamaca iyo kaliya kala bartay kuwaana macnahoodu keenaa arday u jeedaa bring their meaning macnahoodu keen 10 su'aal waaye. kuwaana waxa laga rabaa ku aadi af Soomaaliga saxda ah yacnaa macnahooda she is a mother waxa af Soomaaliga ku qor. ardayga marka imtixaanka markii laga qaado we believe that this student waxa waa aad ayuu ugu dhisan yahay base-ka. marka base-ka lagu sheegay anaga waxa kugu soo koobaynaa hal bil laakiin waa inaad qiimo bixisaa. haddii aad macallin tahay inaad ka faa'iideysan kartaa schedule-kan imtixaanaadkan aan ku soo direynaa waa ku diyaarinay. sidoo kale elementary-ga ardayga markuu intaan ku fiican yahay maxaa loo dhigaa see wax loo siinaa. ardayga markuu intaan barto waxaa la barayaa luqadda Ingiriiska see loo akhriyaa. yes kaasaa loo dhigayaa. waxaa la sameynaa waxaa la siinayaa erayada sida loo akhrinayo haddii ay ku xiranto mar kale adina soo wadaagi doonaa iyagana sida loo siinaayo cashiro aad iyo ahay leeyin oo dhageysiyaal ah see ardayga loo dhageysinaa waxaa dhan adina soo wadaagi doonaa insha Allah. waxaan rajeynayaa in haddii aad English danaynayso barashadiisa aad ila soo xiriir doonto isla mar ahaantaana si dhaqsi leh aad isaga diiwaan gelin Akram Online College. haddii aad macallin luqad dhiga tahayna waxaan rajeynayaa inaad noqon doonto macallinka ugu horeeya ee iibsada schedule-kan iyo weliba imtixaanaadkan. kuwa kalena sidoo kale elementary sidoo kale intermediate so ayadoo sama u soo diyaarinayna schedule-kooda exam-kooda oo isku xiran ayaad macallin ahaan u heli doontaa insha Allah. haddii aad intaa kasii dheereysana iyagoo duuban isku wada xiran cajal ah insha Allah iskani soon waa imaanayaan. aad baad ugu mahadsan tahay insha Allah. waqtiyada imaanaya sidoo kale waxaa la soo wadaagi doonaa qaybaha kale ee English-ka oo hadda hawsheeda socoto. sidoo kale habeenkii horeed waxaan clip yar baan soo duubay yani inaad la soo wadaago يعني ardayda ku daashay luqadda English-ka barashadeeda isla mar ahaantaan xal u baahan. the students who need a solution of their correcting their speaking waa hadalkooda ku saxaya iyaguna insha Allah muuqaalkaas meelaawin little bit busy iska jiro laakiin ayal insha Allah ayal soon laakiin waxaad ku soo xidhan horta English-kan aan ka dhamaan stages-ka anaga aan u bixino adina si aad macluumaad fiican nooga ogaato. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aadan subscribe saarin kanalka wadan subscribe saar. haddii aad jeclaatay muuqaalkana like baan kaa sugeynaa insha Allah. thank you.